wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa magaalada Jowhar ku qabatay shir lagu soo gabagabeynayay nidaamka yareynta ka hortagga khataraha iyo aafooyinka. Shirka oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah wasaaradaha dowlad goboleedka Hirshabelle iyo qaar ka mid ah bulshada reer Jowhar ayaa sidoo kale waxaa looga hadlayay doorka ay ku yeelan karaan wasaaradaha dowlad goboleedka Hirshabelle nidaamka yareynta ka hortagga khataraha aafooyinka sida fatahaadaha iyo wixii la mid ah. Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ugu horeyn sharaxaad guud ka bixiyay shirka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Subax wanaagsan. Waa mahadsantihiin. Waxaa farxad noo inaad kulankan nooga soo qayb gashaan oo waqtigiina iyo timekiina noo hurtaan. Insha Allah barnaamijkeennii ayaan gudagali doonaa. Officially waxaan noo furi doonaa wasiirka, kadib ayaan hawsheennii sida rasmiga ahayd aan u gudagali doonaa. Ajendaha waad haystaan. Ajendahaas ayaan insha Allah waan raaci doonaa. Ugu horeyn waxaan markaa ku soo dhaweynayaa wasiirka sidoo noo siiyo official remarkii oo open remark ahay. Dhinaca kale, Cabdimahad Qorgaab oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Hirshabelle ayaa sheegay in wasaaraddiisa xoog ay saari doonto sidii lagu yareyn lahaa khataraha iyo aafooyinka. marka hore waan islaamayaa dhammaan agaasimayaasha wasaaradaha ka soo qayb galay meetingkan aadka u qiimaha badan. bacda salaam waa idinkaga mahad celinayaa waqtiga iyo sida aad u soo xaadirteen iyo inaad ka soo qayb gashaan meetingkan oo ay qabanayso wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle. agaasimayaal waqtiga aad maxaa la yiraahdaa inoo soo horteena waxaan idin leenahay waan idinkaga mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Programka wuxuu ku saabsanaan doonaa waxa la yiraahdo SOP oo ah Standard Operating Procedure. Standard Operating Procedure-kaas ayaa waxaa lagu falanqeyn doonaa muddo 2 maalmood ah laguna finalize garay doonaa halka maalmo hore loo qabtay sidoo kale intoodna oo ahaa drafting haddana la rabo in lagu finalize gareeyo. agaasimayaasha iyo maxaa la yiraahdaa ayaana idinla wadaagi doono. idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad inputkiini iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabihii la idin egmaday inaad ku dartaan oo maxaa la yiraahdaa aan isla finalize gareyno. waxaan isla joogi doonaa 2daas maalmood ilaa iyo 3daas maalmood ayaana isla joogi doonaa oo maalinta saddexaadna aan soo xiri doonaa haddii uu Ilaahay yiraahdo. waan idinkaga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad. waxaan leeyahay shirka waa inoo furan yahay. soo dhawaada mahadsanidin. Ibrahim Ali Nur, TV Universal, Jowhar.